waxaan idin akhriyayaa heshiiskii ama isafgaradkii hadda arkayseen ay wada saxeexeen madaxda xisbiyada iyo madashu labada xisbiya qaranka mucaaradka wadani iyo ucid iyo madasha wada tashiga ragga u saxeexay xisbi walba 3 nin baa u saxeexay tuma ووضع كيسين صحيح قدومي محمد عبد الله إرو قدومي يمكن فيصل ورابع حسن قوري جامع قدومي مدرسة إبراهيم عبد الله حسين عفياك مدرسة يا عبد الرحمن عبد القادر واحد خلاص هاي محمد حاش علمي أحمد مؤمن سيد أو قدوم الكواد حزبي وطني جمال عبد حسين أو مشرحة مدحوينها حزبي معارضة أوريد يعني waxaan idin akhriyayaa marka heshiiska ama qoraalka aan wada saxeexnay heshiis isafgarad oo ay wada galeen xisbiga ucid xisbiga wadani iyo madasha wada tashiga iyo toosinta qarar annagoo ka duulayna kana midaysan aragtida ah in jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay saldhig ama asaas u yihiin nabadda kala wadaaga dimuqraadiyadda iyo hannaanka xisbiyada badan sida ku qeexan qodobka 3aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland inay nabaddu ku xidhan tahay dimuqraadiyadda markasta oo doorashooyinku baaqdaan ama muddo dhaafaan ay halis gelin karto nabadgelyada in sidaas oo kale dimuqraadiyaddu ay ku xidhan tahay jiritaanka shuruudaha asaasiga ah oo ay ka mid yihiin ku dhaqanka sharciga ama rule of law wax la yiraahdo oo ay ugu horeyso in la helo cadaalad madax bannaan ama garsoor madax bannaan xaquuqal xorriyatul qowlka tartanka xisbiyada ban iyo doorashooyinka mudaysan xorta ah ee xalaasha ah in himilada ugu weyn ee shacbiga Soomaaliland ay leedahay ay tahay in la helo aqoonsi caalami ah horumar iyo nabad waarta jidka kaliya loo mari karana yahay xoojinta iyo taabagalka dimuqraadiyadda sida darteed markasta oo ay baaqdaan ama ay dib u dhacaan doorashooyinku ay keeni karto inay sii fogaato himiladii ay lahayd shacbiga Soomaaliland in doorashooyinka iyo codbixintu ay yihiin xuquuqda dastuuriga ah ee dadweynaha iyo muwaadiniinta iyo qaabka kaliya ee ay ku muujin karaan doonistooda ama ay ku dooran karaan madaxdooda iyadoo aanay jirin cid shacbiga wakiil uga noqon karta doorashada madaxdooda oo ku iman karta oo kaliya codbixin xora oo xalaal ah in xilka qabashada doorashooyinku uu yahay waajib saaran xukuumadda muddo kordhintuna ay tahay sharci darro marka ay maqan yihiin duruufaha ku xusan qodobka 83aad faqradiisa 5aad qodobka 24aad faqradiisa 3aad kuwaas oo ah sababaha kaliya ee dib u dhigi kara doorashooyinka sidaa darteed annagoo ujeedadeedu tahay xoojinta nabadda taabagalka dimuqraadiyadda iyo hiigsiga aqoonsiga caalamiga ah iyo horumarka annagoo ka digtoon kana feejig tallaabo kasta oo waxyeelo iyo hagardaamo u keeni karta nabadda dimuqraadiyadda iyo midnimada dalka annagoo tixgelinayna marxaladda adag ee dalku maanta ku sugan yahay iyo duruufaha ku xeeran annagoo ka warwar qabnaa inaan xukuumaddu u hagar baxsanayn inay doorashooyinka xilligoodii ku qabsoomaan waxaanu halkan iskula qaadanay qodobadan hoos ku qoran annagoo ka kooban xisbiga mucaaradka ah ee cadaaladda iyo daryeelka ucid xisbiga mucaaradka ah ee wadani
iyo madasha wadatashiga oo ka kooban muwaadiniin isu abaabulay inay taladooda iyo aragtidooda ka muujiyaan siyaasadda guud ee dalka. qodobka koowaad, inay dalka ka jirto guud ahaan nabadgelyo taam ah, taasoo muujinaysa inaanay jirin duruufaha ku xusan qodobka 83 iyo 42 oo ah kuwa doorashada dib u dhigi kara. sidaa darteedna ay waajib tahay in doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ay ku dhacaan muddadii sharcigu u cayimay oo ku aadan 26 Juun 2015. inay lagama maarmaan tahay in la qabto diiwaangelinta codbixiyaha muddadii loo qorsheeyey sidii horeba loogu wada heshiiyey saddexda xisbi qaran, xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka, si loo xaqiijiyo inay dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah, si looga hortago inay soo noqdaan guuldarrooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii dowladaha hoose ee 2012. inay lagama maarmaan tahay in wax laga bedelo qaabka iyo shuruudaha xulashada iyo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka ah, si loo xaqiijiyo loona hubiyo dhexdhexaadnimada guddiga, si loo abuuro duruufo dimuqraadi ah oo ay u siman yihiin saddexda xisbi qaran ee u tartamaya ee doorashada ku tartamaya. in haddiiba ay dhacdo inay doorashooyinku xilligoodii ku qabsoomi waayaan, in eedeeda ay yeelan doonto xukuumaddu iyada oo ay waajibkeeda tahay inay qabato doorashada xilligeedii, inay waajib noqon doonto in wixii ka dambeeya 26 Juun 2016 oo uu ku egyahay mandate-ka xukuumadda tani la dhisi doono xukuumad ku meel gaara oo loo dhan yahay oo waajibkeeda koowaad yahay inay dalka ka qabato doorashooyin. ugu dambayn, in haddii marka la gaaro 31 December 2014 ay muuqato ama caddaato inaan dalka doorashooyin ka dhacayn xilligii loo qorsheeyey, la bilaabi doono wadahadal ku saabsan abaabulka iyo ka tashiga xukuumadda ku meel gaarka ee kor ku xusan.